lacagta ugu badan ee laga dhaco cryptocurrency waxaa ka dambaysa dawladda Kuuriyada Waqooyi. Sanadihii ugu dambeeyay dunida crypto waxaa gilgilay weeraro internet oo lagu waayay balaayiin dollar. Marka la sameeyo baaritaanada waxa ugu horeeya ee arkaan ilaha sirdoon iyo kuwa amniga waxa ay tahay magaca dawladda Kuuriyada Waqooyi iyo kooxdeeda xatooyada ku caanka ah ee la yiraahdo Little Group. Qobarada internetka waxa ay sheegayaan in dawladdaani ay hacking-ka u aragto il dhaqaale oo ay uga gudbayso cunaqabataynta caalamiga ah ee ka saaran guud ahaan dunida. warbixin ay si wada jir u soo saareen qaramada midoobay Mareykanka iyo blockchain analyst waxa lagu ogaaday in lacag ka badan 3 bilyan oo dollar sanadihii ugu dambeeyay ay xaday isla markaana ay haagaraysay dawladda Kuuriyada Waqooyi. baaritaanadu waxa ay muujinayaan in hackerska Kuuriyada Waqooyi kaliya aysan ku tiirsanayn inay wax haagarayaan laakiin ay ka dambeeyaan farsamooyin waaweyn oo casri ah oo dawladdu ay taageerayso. sanadka 2022 waxaa dhacay mid ka mid ah weerarada ugu weynaa ee lagu qaaday suuqa cryptocurrency waxaana lagu hagariyay lacag gaaraysa 620 milyan oo cryptocurrency ah. sanadkii xigay 2023 waxaa la hagariyay 100 milyan oo cryptocurrency ah waxaana lagu eedeeyay kooxda la yiraahdo Little Group ee Kuuriyada Waqooyi. marka la joogo Kuuriyada Waqooyi crypto hacking waxa uu noqday il dhaqaale oo ay dawladdu dhaqaale ka samayso isla markaana ay u tababarto dhalinyarada soo koraya in ay sameeyaan ama ay bartaan cyberka si ay ugu shaqeystaan isla markaana ay u isticmaalaan hacking-ka lacagaha. xilligan la joogana dawladda Kuuriyada Waqooyi waxa loo arkaa mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan dhinaca cyber warfare wax loo yaqaan waana waxa ugu weyn ee xilligan ay u adeegsanayso si ay uga soo kabato cunaqabataynta dhaqaale ee ay ku hayaan dalalka caalamka oo Mareykanka uu hogaaminayo. intaas ayaan soo koobaya muuqaalka filosofa TikTok-geena soo raac page-keena Facebook sidoo kale YouTube-keena subscribe soo saar halkaasna waxaad kala doontaa casharo free ah oo ku saabsan crypto iyo sidoo kale forex haddii aad u baahantiin USDT qiimaheeda uu jaban yahay nagala soo hadlo lambarka profile-ka saaran